waxay isugu soo baxeen ururka hooyooyinka dhalinyarada iyo macabra odayaasha duqeyda iyo madaxda waxay maanta u dabaaldegayeen oo ka hortegayeen xaafadaha laga dhaqmay deegaankooda oo wax magaratada ku sheekaysay waxaan hadda mikrofoonka idinku dhiibayaa gudoomiyaha ururka hooyooyinka iyo ururo kale oo ka mid ah ururka hooyooyinka. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Xaawo Saalax Mire waxaa ka socdaa ururka haweenka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed degmadayada qaado inaanu nahay qaatida keeda Soomaaliya inaanu nahay dawlad dhalatay oo Soomaaliya ah oo Soomaaliya buuraha inaanu nahay baan idiin sheegayaa. waxaan kaloo idiin sheegayaa halkaan nimanka kaga hadlay buuro hadallada kaga hadlay inay yihiin nimankii ay sheegtay Saada Cali minaaq meel xun jooge laga maaran mulkulaashi minankeeda ha miraafto. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa dadweynaha meesha isugu yimid. waxaan salaamayaa ummadda islaamka ee meel joogtaba. waxaan tacsiib u dirayaa Cabdilaahi Yuusuf Yey madaxweynehayagii hore baan tacsiib u diraynaa dadka iyaga halkan jooga. khaatumo tacsiibay u diraysaa allah janno iyo raxmad. saamaxnaakum waa in la saamaxaa maxruumka. waxaan leeyahay waddada uu idinka qarxinayaa buuro wadan baa xoogaa shalay ka dhacay. xoogaagaasi yuu idin danqin wax qiimaa oo ku fadhiyo male. dadku yuu ku colloobin yuu wax kale u qaadanin. carruur yaryar iyo islaamo dhacdhacaya baa waxaa la siiyey $20. waxaa soo dirsaday Faroole. waxay ku socotaa inay isu keento ummadda Soomaaliyeed oo meelaha ku kala luntay ee gobolba meel u go'ay. waxay jarmataraha u haytaa Khaatumo inay sidii waagii hore oo mustaqbalka loola halgamayay ay meel isugu keentay maantana inay Soomaaliya meel isugu keento. waxaan intaa ku darayaa labada maamo oo labada dhinac naga xiga oo cadowga ku noqday Soomaaliya labadooda shacab mid deris baanu nahay derisnimaa naga dhaxaysa midna waxa weeye midaanu wada dhalanay oo aanu ehelnahay oo dad iyo dalba aanu wadaagno oo aan marna aan xumaani noo gelayn. laakiin uu Faroole uu ku talagalay inuu isku khaldo oo maamulkaas la yidhahdo Khaatumo isagoo cadaawad u haya inuu labada shacab iska hor keeno. haatee laba shacab oo walaalaa oo wada dhashay oo marra aan dhexdooda xumaani ka imaanayn weeye. labada shacab Khaatumo iyo Puntland labadooda shacab laba shacab oo wada dhashay weeye. waxa uu Faroole ka wado iyo cidda uu soo adeegsanayaana waxba u dhimi mayaan. intaa waxaan ku darayaa maamulka kale ee Siilaanya wato waxa weeye deris baanu nahay. Siilaanya wuxuu ku talagalay labada shacab ee Khaatumo iyo Somaliland inuu isku dhifto. waxaan leeyahay meesha